bini'aadamku wuxuu hal abuuray laga soo bilaabo muddo hore iyo wakhti sii horraysay qaabab kala duwan oo uu ku helo waxay uu quudan lahaa ee uu ku noolaan lahaa quudkiisii inuu kasbado u shaqaysto. bini'aadamku wuxuu u sameeyey sababo kala duwan iyo arrimo kala duwan oo uu ku kasban karo arrintaas. dadkii hore waxaad arkaysaa inay noolaan jireen iyagoo ku nool qaabab kala duwan oo quudkooda iyo cuntadooda ay ku helaan, taasoo maanta ka duwan sida ay ku helaan dadku. laakiin qofka bini'aadanka ee insaanka ah waxaa ku abuuran jidhkiisa iyo maskaxdiisa inuu raadiyo u dadaalo wixii uu ku noolaan lahaa. arrintaasna qof ka maarma ama ka kaaftoomi kara ma jiro. suuratu quraysh kelmado waxaa ku jira rixlata ashitaa'i waasayf. macnuhoodu waa maxay? maxaase loo jeedaa? insha allahu tacaala casharka kan ayaad ku ogaan doontaa ee nala soco. sideedaba mas-uuliyadda insaanka ama qofka bini'aadanka mas-uuliyadda saaran way sii siyaadaysaa mar allaala markuu farac yeesho, yacni carruur dhalo, waayo baahidoodii ayuu daboolayaa. waad aragteen in badananaa ka mid ah 10 kilomitir buu safrayaa si uu quud iyo lacag u helo. kuwa naftooda ay u halligayaan ama khatar u gelinayaan. dhibaato kale ayuu u dulqaadanayaa si uu u helo quud uu ku noolaan lahaa isaga iyo qoyskiisa. arrimo culus ayuu dusha saaranayaa si uu u wanaajiyo qaab nololeedkiisa, irsaaqadna u raadsado wanaagsan. marka nolosha wanaagsan iyo irsaaqaddu waa shay nala ka dalbay ama nala ka doonay oo bini'aadanka dhan laga rabo. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka haddii arrimahan la siiyaa ayuu yidhi adduunyadii oo dhan wuu haystaa. waxaana ka mid ah arrimahaas in qofka naftiisa ama jidhkiisa ama ehelkiisu ay caafimaad qabaan, quudkuu cuni lahaa maalintaasi ee kaafin lahaana uu haysto, ammaanna uu ku nool yahay. qofkaasi adduunyada dhammaan asaga haysta, waayo arrimahaasi waa baahida aas-aasiga ee qofku u baahan yahay. dad badan baa waayey. dadaa waxay cuni lahaayeen haysta laakiin ammaan haysan. dadaa waxay cunaan iyo ammaan haysta laakiin xanuunsan. marka qofka bini'aadanka arrimahaasi hore hadday u xaqiiqoobaan ogow noloshiisu waa degaysaa, raaxa ayuuna dareemayaa insha allah. dadkii hore iyo carabtii hore islaamka ka hor, gaar ahaan carabtii jasiiratul carabiya degganayd, waxay ahaayeen kuwo saxaraha ku safra. waxay ku noolaayeen meel saxara ah oo bimacnaa baadkiiyo biyuhu ku yaryahay, khayraadka ka soo baxana uu aad iyo aad u yaryahay. marka way safri jireen si ganacsi iyo xoolo ay u helaan oo ay ugu noolaadaan ganacsigaas. marka waxay u qaybiyeen safaradoodii xagga ganacsiga ah yeman iyo shaam, waana arrintii suuraddu ka warramayso rixlata ashitaa'i waasayf. sayfku waa jiidaalka, shitaaguna waa qaboobaha. marka xilliga jiidaalka shaam bay aadi jireen, halkaasay cuntada iyo raashinka ka soo gadan jireen, waayo dhulkaa shaam khayraadkiisa iyo beerihiisaa badnaa wakhtigaas. xilliga qaboobahana xagga yeman bay aadi jireen oo halkaasay dharka iyo baraafuunka iyo carafta iyo catarada ka soo gadan jireen. waddada marka ay sii marayaan oo sii safrayaanna qabaa'ilka iyo dadka halkaa ku nool mayse dhibi jireen oo ammaan bay ku mari jireen, waayo waxaa la dhahayaa waa dadkii xaramka ilaahay degganaa oo ilaahay xaramkiisa ilaalinayay. qabaa'ilka kale iyo reeraha kale waa ay ixtiraami jireenoo ma dili jireen mana dhibaatayn jireen, xoolahooda iyo ganacsigoodana ma dhici jirin. waana midda ilaahay ugu manna sheegtay oo ugu gallad sheegtay oo ku xasuusinayo suuratu quraysh iyo meelo kaloo qur-aanka ka mid ah reer maka, waayo markaas waxaa loo ixtiraami jiray inay yihiin dadkii beydka ilaahay degganaa ee u adeegayey. marka qofna dhibaato ugama imaan jirin, saasay caan ku ahaayeen. iyadoo sidaa tahay haddana magaalooyinka kale iyo deegaamada kale dhaca iyo boobka iyo afduubka waxaas waa ka jireen. lidaalika ilaahay wuxuu yidhi liiilaafi quraysh iilaafihim rixlata ashitaa'i waasayf. lafdiga quraysh meesha keliya qur-aanka lagu sheegay. ilaahay wuxuu yidhi quraysh annagaa difaacnay, annagaa soo dhowaynay, annagaa soo dumnay, iyadoo deegaamada kale iyo adduunka kale nabadaysa ka jirin oo laysdhacayo oo xumaantaa laysku samaynayo, haddana quraysh ammaan bay ku noolaayeen. ilaahay wuxuu leeyahay iilaafihim rixlata ashitaa'i waasayf. ammaan baynu siinay safarkoodii xagga qaboobaha ay u safri jireen xaggaayo yeman, iyo wasayf jiidaalka markay u safri jireen xaggaayo shaam. annagaa ammaan siinay, annagaa difaaci jirnay buu yidhi, annagaa dadka kale qulubtooda u gelinay inaan la ilaaliyo oo aan la dhibaatayn. waa la soo dhoweeyey quraysh, ilaahay baa difaacay, waayo meeshaas waxaa laga soo saarayaa nebigii nebiyaasha ugu dambeeyey. waa gogoldhac iyo hordhac ugu horraysa. sidaa darteed ilaahay ammaankaasuu idin siiyey. gurigeenna iyo magaaladiinnoo beeri ka bixin ayaa cuntada adduunkaoo dhan idiin imaanaysa. maka beera ma lahayn, wamaca daalika cuntada adduunka ka soo baxda beeraha kale ka soo go'da waa laga helayaa maka. ilaahay baa keenay. rabbi wuxuu yidhi falyacbudu rabba haada albeyt. beydkan sababtiisa lagu ixtiraamayo rabbiga iskale ha caabudeen, alladii atcamahum min juuc, ilaahaygii baahi ka nabadgeliyey, wa aamanahum min khawf. wamaca daalika meel qarfaa bay degan yihiin oo saxaraa, laakiin ilaahay baa beerihii iyo cuntadii u soo raray. alladii atcamahum idinka quudiyey min juucin gaajo iyo baahi, arki maysaan, wa aamanahum min khawf,
cabsina ilaahay idinka aamin yeelay baynamaa magaalooyinka kale ay cabsi dareemayaan sidaasaa rabbi ku yidhi jalla jalaaluhu wacaduma sultaanu aayadkan ilaahay wuxuu ku yidhi awalam yarow muwayse arkayn annaa jacalnaa inaynu yeelnay ee aan dejinnay quraysh baa loo jeedaa xaraman aamina xaram aamina deegaan aamina laakiin wayutakhadafu annaasu min xawlihim laakiin dariskooda iyo meelaha u dhowdhow dadku isdafayaan oo isdilayaan oo isdhacayaan ilaahay baa ugu gallad sheegtay nimcadii amniga beledkoodii iyo guryahoodii ammaanka siiyey iyo ilaahay ku irsaaqay irsaaqada wanaagsan fadligiisa ay arrintaa ku heleen laakiin in badan ayaa ka mid ah nimcada ilaahay waa dafireen nebi maxamed iyo diintiina waa ku gaaloobeen